kuuriyada waqooyi waxa ay soo bandhigtay wax u muuqda gantaalo cusub oo riddo dheer iyo weliba gujisyo casri ah waxaanay dhoolatuskan ku maamuusaysay sannad guuradii 105aad ee ka soo wareegtay dhalashadii aasaasaheeda Kim Il Sung. gantaalada ku rakiban kolonyadan baaxadda weyn ee lasoo bandhigay ayaa u muuqday inay ahaayeen mowduuca asaasiga ah ee bandhigan waxaana hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un oo ah tafiirta aasaasaha dalkaasi uu waqti badan salaan u saaray hogaamiyaha ciidanka istaraatiijiga oo ah laan ka mida xoogagga Pyongyang kaasoo kormeerayay farsamaynta hubkan cusub. kadib markii khamiistii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump cambaareeyay isla markaana uu kuuriyada waqooyi ku tilmaamay dhibaato haysata dunida oo idil ayaa bayaan uu soo saaray ciidanka dalkaasi oo uu kaga jawaabayay hadalka madaxweynaha Maraykanka waxa uu ku sheegay in ay u dhaqmi doonaan si aanay raxmadi ku jirin isla markaana kuwa xadgudubka caadaystay aanay u ogolaan doonin in ay dunidan ku sii noolaadaan. gudoomiye ku-xigeenka xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya Jio Ryong Ha oo ku hadlaya afka xukuumadda kana ambaqaadaya hadalka Donald Trump ayaa si adag u goodiyey. 사회주의 성세 세계 평화 수호의 전초선을 억적같이 지키고 있으며 주체적 국방공업은 haddii madaxweynaha Maraykanku uu isku dayo inuu daandaansi aan loo meeldayan nagula kaco dowladdeenna kacaanku si degdeg badan ayay duqayn waxlaysa ugu jawaabi doontaa. dagaal dhammaystiran waxaannu kaga jawaabi doonnaa dagaal kaloo dhammaystiran. duulaan dhinaca nukliyeerka ahna waxaannu ugu jawaab celin doonnaa hab innaga noo gaar ah oo dhinaca dagaalka nukliyeerka ah. 동방의 핵강국 아시아의 로켓 맹주국의 형포성으로 메아리치고 있습니다. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta waxa ay ku tilmaamtay wadciga ka jira jasiirada Kuuriya mid aad u murugsan xasaasina ah.